fadlan haddaan nagu xusubtay subscribe saaro gambaleelkana fursi aad u hesho xogta heer barnaamijyada xaggani aan soo gelino. barnaamijkeena maanta waxaan ka hadli doonaa alfanaan qadirkiyo oo maalintii 18aad ku xidhan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. haddaba haddaan nahay bahda xoojinta wararka xiriir aan la sameynay qoyska alfanaan qadirkiyo ayaa noo sheegay in fanaan qadirkiyo xaaladiisu liidato isla markaana ku dhex xanuusta jeelka isla markaana ilaa hadda loo gudbin wax isbitaal ah. haddaba haddaan nahay bahda xoojinta wararka waxaan halkan fariin uga dirinaa dowladda federaalka Soomaaliya oon ka codsano inay xiriir la sameyso dowladda dhigeeda Itoobiya isla markaana ay kala hadasho arrinka fanaanka. waxaan karoon fariin u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo taageerayaasha fanaanka qadirkiyo aan leenahay alfanaan qadirkiyo waxa uu baahan yahay duco. alfanaan qadirkiyo waa fanaan agoon iyo rajo ah isla markaana ay wax walaalo dhalan. haddaba waxaan ka codsanaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay alfanaan qadirkiyo u duceeyaan allana uga baryaan inuu alla ka soo furdaamiyo. waxaan kaloo idin tusi doonaa video alfanaan qadirkiyo kaga sheekeynayo taariikhdiisa isla markaana aad ii soo jiidatay. haddaba intayna videoga u gudagelin waxaan ka codsanayaa walaal macaan inaad channelka subscribe noo saarto sina share geliso la wadaagta asxaabtaada si ay u gaadho Soomaali Maxamed. wallaahi dadka inta badan waxay weydiiyaan ooyinta majliin baa mase yacni waa dhab, balse ani waxaan u sheegaya waxay tahay videoga inta ugu dambeysa ee ilmada iga socota ama ilmada iga imaanaysa si reality iyo fiiri xitaa qof jiliin jilay xitaa ilaa intaas ma keeni karo. waxa iga keenayna waxay tahay heesta walaal maanta aan u jiray ama u sameynayay, yacni in aan anigu dareemayay walaalka sida uu u macaan yahay maanta haddaan haysan lahaa. waxaan la dardaarmayay oo haddana targetka uu ii saarnaa qofka walaal haysta ee walaalkiis xumeynaya maanta, qofka walaalkiis u joogo adduunyada ugu nool oo haddana xumeynaya laga yaabee ama ay dhici karto walaale in muddo ah wax yar dhexdooda ka dhacay isku nacay ama kala tagay. aniguna inaan isku dagay yacni inaan tuso maanta inaan isku keeno walaalnimaduna ay aad u macaan tahay. maanta ani haddaan walaal yacni oo ila dhasho isku hooyo isku aabba aan nahay aan haysan lahaa, yacni sida aan hadda dareemay si kasii badanaan dareemaya markaan dhabta ka hadlayo. laakiin adigoo haysatid ka waran haddii yacni aad dhaqaaleysan weyso ka faa'iideysan weyso. marka ani taas waxaan hadlayay bulshada waxaan u gudbiyay fariin yacni oo ah xaggayga ka socota ama bulshada qaybaheeda kala mid ah ay ka haysato dhibaatadaas oo kale ay haysato. marka waxaan la dardaarmayay dhalinyarada walaalaha haysto haddaa walaalkaaga xitaa yacni muddo aad kala maqneedeen waxaan ku dhihi lahaa u tag ifkaa walaal lagu yahay. beri markuu kaa dhinta adaa guilt dareemaya ama xumaan ama yacni xanuun dareemaya, balse markuu maanta kula joogana aad dhehaysid adoo hooyadaa dhashay xitaa aad ogtahay war iga dhaafkaas dhala waayo meelaha aad ku caynaysa ama wax walba aad dhehaysid. sidoo kalena waxaan ka hadla wax siinta haddana aan leeyahay walaalkaaga yacni waxaad adiga maanta haysatid yacni beri waad ka tegaysaa aakhiro qabrigaa ka gelaysaa, balse haddaad ugu faa'iidaysid asagana waad weyn kartaa berisi oo asaga waxa kuugu qabto ma garat. marka yacni adduunyada sideeda badan waa way iska yartahay waa labada gelin harkeed. xaqiiqdii haddii mugdi la dhaho qof walba dhalinyarada waa ogtahay inta badan way ka gambadaan runta ma sheegaan qaarkood way u googooyaan. laakiin waxaa fiican qofka bini'aadanka si uu comfortable u noqdo inuu ka hadlo yacni wixii markaasiti ku soo dhacay ama ha noqdo dhan family ah ama ha noqdo dhan shakhsiyan asaga ah yacni markaasiti inuu ka hadlo. anigoo ku bilaabayo yacni dhankayga markaan for reality aan u hadlo oo dhan family ay tahay kullaytaba aniga hadda dadka intay wada yaqaaniin magacayga kaliya iyo muuqayga yaqaaniin balse ma yaqaaniin like noloshayda iyo lifekayga saxda ah صح. inta badanna kagama aanan hadlin yacni meelaha social media ama yacni kagama aanan hadlin. tan marka waxay ku tusaysaa yacni qof walba inuu lifekiisa saxda ah ka hadlo comfortable-na u dareemo si uu u noqdo yacni qof marar badan hadalladiisa la qaadan karo. run ahaantii aniga aysan soo garin hooyo lama aanan soo barbaarin laakiin waxaan la soo barbaaray ayeeyo. ayeeyana markuu qofka ayeeyo korisay waa ogtahay waa qof badraan oo la ilaaliyo inta badan muxuu ayeeti la doorayo, balse noloshu markii ay ku tahay aa arkaysa haddana yacni garab aadan haysanin hooyo aadan lahaynin yacni sida aad dareemayso waa arki kartaa. ani laakiin 100% waxaan haystay ayeeyo ama hooyo hadda aan adduunka ugu jeclahay ayadana noloshoo dhan waxay tahay macaanteeda iyo quruxdeeda i bartay. balse sometimes markii ood yacni
aad aragtid nin dhalinyaro ah oo saaxiibkaaga oo kale camal yacni hooyadiisa dhabta ah haysta waxaad arkaysaa yacni waxyaabo adiga ku taabanaya oo markaasaytay booskaa bannaan oo isleedahay maxay ku dhici kartaa adigoo yar hooyadaada maadaama aanan arkin ayeeyana aad la soo kortay kadibna waxaad ku sii ilaawda haddana intay ayeeye kuu qabatay inay booska hooyo waxba aysan yacni kaa dhinayn yacni mararka aan dareemo xaaladahaasaytay waaban kuu sheegayba waxaan yacni samayn jiray inaan yacni horta markaan arko yacni anigu sidaan hore idinku sheegayna madi aan ahay yacni arko walaal kale la socda ee haysta farxad siinaya aniguna garabkayga walaal ila dhashay iyo hooyayga aabbo uusan u joogin waalidiintana ay geeriyoodeen aan la noolahay waalidiin kasii macaan badan maanta adduunyada ii jooga allaha ii dhaafo balse waxaan giltiga aan dareemi jiro maanta usoo gudbinayo waxay tahay yacni xanuun inay boos iga bannaan yahay marka aan isku dayay inaan kaga baxana waxaan kaga bixi jiray si easy ah markaan ama ilmeeyo ama is-uqdadeeyo ama yacni maskaxdeeda ay gasho haddii maanta sidaas ay heli lahayd ama adduunkan ay ku joogi lahaayeen iyo maanta sida aa haysatid maxay ku kala duwan yihiin farqiga qadar waxaan rabaa horta koodina ku bilowdo magacaagu saddexan magacayga waa maxamed qadar ibraahim cumar oo hadda ku magac dheer qadar ibraahim qadarkeego qadarkeyo markii la yiraahdo dadka wax badan la isweydiinaya qadarkeyo waa qof ma nin dhalinyaro oo Soomaaliyeed waa fanaan da'yar balse taariikhiyan qadarkeyo intuu ku dhashay intuu ku soo barbaaray intuu ku soo waxbartay aniga koo shakhsiyan waxaan ku dhashay degmada Yaaqshid waxaan ku soo barbaaray Yaaqshid waxaan wax ku soo bartay Yaaqshid dugsi sare ma aanan gaarin balse dugsi dhexe ayaan kaga baxay waxbarashadeedana yacni heerkan dadaalna fankana maanta waxaan ku soo gaaray yacni dadaalkayga intaas aan soo waday qadarkeyo su'aasha kale intaan ugu baxaan rabaa inaan ku weydiiyo intaan fankaaga usaan u socon bixin waxaa jira hal heys ah waxaan doonayaa inaan noqdo Chris Brown Soomaaliyeed yes hadda ka hor bandhig aan sameeyay